waxaa sii kordhiyay khasaaraha ka dhashay daadadka roob saacadii la soo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho. Roobkan oo saacado badan ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed, iyadoo sidoo kale meydad hore laga soo saaray goobihii roobka uu ka da'ay ee magaalada Muqdisho. Maamulka degmada Hodan ayaa ku guuleystay in ay soo saaraan meydadka laba ruux oo mid oday uu ahaa halka qofka kalena uu ahaa wiil da'yar. hase ahaatee maamulka gobolka Banaadir ayaan dadaal aan loo kala harin ka geystay magaalada Muqdisho si loo soo badbaadiyo dadka ay saameynta ay ku yeesheen roobabkii ka da'ay magaalada Muqdisho, iyadoo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir oo ku maqan safar dibadda ah uu qadka telefoonka uu kula soo xiriiray mas'uuliyiinta kale ee gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga si loo badbaadiyo dadka shacabka ah, waxaana lagu guuleystay in dad badan laga soo saaro goobihii ay ku go'doomeen ee roobka uu ku horay ee magaalada Muqdisho. Waxaana sidoo kale jirta in khasaaraha uu sii kordhayo. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka Jibriil Cabdirashiid oo booqday goobihii ay saameeyeen daadadka roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan biyaha looga saarayo goobaha biyo fariisinka noqday ee magaalada Muqdisho, isla markaana xukuumadda ay gacan ka geysan doonto sidii gebi ahaanba wadooyinka burburay dib loogu dhisi lahaa iyaga oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir. tan iyo markii magaalada Muqdisho xaafado ka tirsan ay biyo dhigeen roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho, sidoo kalena dad badan la soo badbaadiyay, inkastoo qaar ka mid ah dadkii xaafadaha deganaa ay ku geeriyoodeen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen guryana ay ku burbureen, ayaa maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya lamaha amniga waxay ku guuleysteen in la badbaadiyo dad badan oo guryahooda ku go'doonsanaa.